waftigana uu hogaaminayay madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo in muddo safar gudashada waajibaadka xajka ugu maqnaa dalka Sacuudi Arabiya ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu soo dhamaystay acmaasha xajka gagada diyaaraduhu ka duulaan kana soo degaan ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa waxaa si diiran oo kaliya laaban ugu soo dhaweeyay waftiga madaxweynaha Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici xubno kamida golaha wasiirada madaxda kala duwan ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiyeen mayrka magaalada Hargeysa siyaasiin waxgarad iyo mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha qaranka ee kala duwan soo dhaweynta kadib waxa warbaahinta kula hadlay gudaha madaarka kana warbixiyay safarkaasi gaar ahaan gudashada waajibaadka xajka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed oo kamid ahaa waftiga madaxweynaha waxaan u baxnay gudashadii xajka waxaanu kamid ahayn waftigu madaxweynuhu hogaaminayay dadkii uu boqorka Sacuudigu ku soo martiqaaday maxaan ku dhahdayay xajka gudashadiisa oo dad fara badan ahaa xajka waan soo gudanay shuruudihiisii oo dhan waanu soo dhameynay alxamdulillaah rabbil caalamiin dadkana waanu soo ducaynay dalkana waanu soo ducaynay anana xajkaanu gudanay ilaahay dhamaanteen baa inoo wada aqbalo wasiirka oo sii watay hadalkiisa ayaa waxa uu sharaxay kulamo ay la yeesheen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Sacuudiga iyo waxyaabaha ay ka wada hadleen waxa aanu la kulanay dawladda Sacuudiga xilligii ugu horeysay waxaanu kula kulanay wasiir ka tirsan golaha dawladda ee Sacuudiga oo qaabilsan arrimaha Afrika wasiirka dawladda ee qaabilsan arrimaha Afrika waftiga isu dhanbuna qaabilay waqti aad u fiican buu na siiyay wax fara badan baanu ka sheekaysanay su'aalaad fara badan baanu jeedinay isaguna uu na weydiiyay cilaaqaadkanu dabilow buu ahaa waxaa nooga muuqanaysay inuu si aad u wanaagsan noo soo dhaweeyay waqti aad u fara badanna na weydiiyay na siiyay su'aalaad badan iyo waxaanu ka wada hadalay waxa ay ahaayeen arrinta dalka Soomaaliland xaaladiisa واقفتيسا السياسية منطقة إلى أيام حنكو دهدايي بدأ عص إيو خليجك عدماد قولة ففيدنا الله يقارنه حنكو دهدايي مواقفة السومالي اللي كتاقنت هاي كوي هورا دولتها عربتها يكو كالا قيب سمين إلا ننكو بوسيشن كيني هورا أنسي تاقن هاي إيقانا مركا وحان سلسة هذا القادنا إلا كوادا شقينه ودهان xaaladda nabadgelyada ee manطقada iyo gaar ahaan inta manطقada aynu madlaca iskala nahay gacanka cadmeed iyo khaliijka maxaan ku dhahdaa badda cas inta aynu kaga beeganahay Maxamed Kaahin Axmed wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa dawladda Sacuudiga gaar ahaan boqorka Sacuudiga uga mahadnaqay soo dhaweynta iyo waliba maamuuska ay siiyeen dawladda Soomaaliland waanu mahadcelinaynaa boqorka Sacuudiga iyo waliyal cahdiga dalka sida wanaagsan ay inoogu martiqaadeen hoosunkii xajka iyo sidii fiicnaydeen loo soo dhaweeyay ilaa intii aanu maqnayn markaa waxaan damarto ahayn dadkii boqorku martigeliyay ay qasriyada diyaafada loogu talagalay baanu joognay aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland safarka uu kaga soo laabtay dalka Sacuudi Arabiya ee gudashada waajibaadka xajka ayaa waxa ku eelinayay wasiirada wasaaradaha hawlaha guud arrimaha gudaha diinta iyo waqafta iyo la taliyaha gaarka ee madaxweynaha Axmed Saki Daahir Xasan warbaahinta qaranka garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa.